qofka caadiga ah markuu eego wadciga muslimiintu ay ku jiraan oo ah dhaqaalahoodu inuu dambeeyo siyaasadoodu inuu dambeeyo maalku in laga maal badan yahay hubka in laga hub badan yahay niyad jab badan baa dadka qaar ku abuurma laakiin dhan kale marka la eego waa ummadda ugu da'yaree dunida ku nool that means Soomaali maanta haddaynu eegno waxa laga yaabaa boqolkiiba 70 inay 30 jir ka yarta that means waa xoog soo socda masaajidka imika haddaan sidaa u eego waa cirra laba qof iyo laba laga yaabaa inaan arko macnaheedu waxa weeyaan waa ummad dhalinyaro ah Soomaaliya qurana ma aha waa caalamul islaam oo dhan baa noocaasi ah cagsiga haddaynu galbeed iyo bariba eegno waa dawlado gabgaboobay iyo dad gabgaboobay iyo maskax gabowday da'yartoodu da'weynta ka badan inta benshanka galaysa ayaa ka badan inta soo galaysa shaqada that's why in badan qaxoonti u qaataan qaxoontigani waxa la rabaa in lagu buuxiyo meeshii dadkii shaqada galayay waayo dadka ka sii baxaya benshanka noqonaya ka badan da'yarta shaqada soo galaysa idan haddii xagga bini aadamka laga eego caalamul islaami waa dhalinyaro waa dad xooggan oo mustaqbal loo soo socda haddii laga eego dhulkay degan yihiin waa dhulka dunida ba isku xidha cidda dhulkaa xukunta dunida xukunta waxay yidhahdaan dunidu badaha dunida isku xidha cidda xukunta 5-6 kanaal ee dunida isku xidha mid mooyaane inta kale muslim buu ku yaalaa Panama Canal oo labada Mareykan dhexdooda ah ayuun baan gacanta muslimka ku jirin ama inta kale waa Bab al-Mandab waa Canal Suez waa Jabal al-Tariq waa Basfar ama marma labada uu leeyahay Turkigu waa Hormuz kan Iran iyo Oman iyo inta u dhaxaysa waxa kanaal dunida isku xidha gacanta muslimka ku jira waa wasad ad-dunya Mareykan intaasuu xoog ku joogaa si uu maamuli kariyo Ingiriis Turkiga intaasay heshiis kula galeen 100 sanadood khilaafadii Uthmaaniga markii la ridayay heshiisyadii la galay waxa kamid ah 100 sano ee soo socda kanaaladaas inaanu iyagu lahayn free in lagu mari karo 2023 ayay ku dhan yihiin 100 sanadood 1923 ayuu ahaa heshiisku 100 sanadood waa 23 markay gaadho ayuu dhamaanaya wixii ka dambeeyay gacanta Turkiga ku wareegaya gacanta Turkiga hadduu ku wareego Russia dunida meel ay kala xidhiidha ma leh Turkiga inay marto mooyaane biyo kululba ma leh iyo wax xagaa ka xigo oo dhame si kale haddaynu tilmaamno waxay degan yihiin meel Ilaahay dhigay energy-ga dunida shidaalka dunidana 70-80 wax ku dhow waxa Ilaahay hoos dhigay inta muslimku dago khaasatan iyo meelaha laga soo bilaabo ilaa iyo inta muslimku dago ayaa shidaalka energy-ga dunida hoos yaala caalamul islaami wuxuu ka mid yahay wadannada aan kham maada kham ma loo soo dhoofinin ee maadada khamka ee wadannadooda taala wax kastaba inay helayaan anything loo baahan yahay dhulkoodu inuu leeyahay oo tasniic ama industry-gu u baahan yahay haddii waddanku dhalinyaro uu yahay haddii mawqicu ku dhaca uu yahay mawqaca dunida maamula haddii energy-ga dunidu gacantooda ku jiro hadday maadada khamka ay helayaan iyagu haystaan waxa ka dhiman oo kaliya ciddii isku hagaajin lahayd alxanaka siyaasiya qaa'idkii lahaa ee saaxibu risaala mid ka mid ah aqoonyahanka reer galbeedka wuxuu leeyahay waxa qura nimankan buu leeyahay waa inaynu xoog isaga ilaalinaa waayo waxa qura u dhimani waa salaaxdiin cusub oo soo baxa buu leeyahay nin risaalana sita xanaka siyaasiyana leh mabaadi'na rumaysan en maamulna garan kara iyo si dad loo hogaamiyo caalamul islaami intaas ka dhiban risaalo daa'ima bay ay tilmaamayaan oo aan marnaba isbedelina way haystaan dadka kale kutubtoodii way qaldantay
tawraadii rasmiga ahayd ma taallo injiilkii rasmiga ahaa ma yaallo bale maanta waxay maraysaa xataa afka markay noqoto dowlado waaweyn oo dunida ka mida baa tijaabinaya hadda arkiifyadooda rasmiga in af carabi lagu qoro waayo af carabigu waa afka qudha aan isbedelin af carabigu 1200 sannadood buu sidii siiyey yani ninka luqa carbeed maanta bartay ashcaari aljaahiliya iyadoo loo fasirin buu akhrinaya waa carabiga habuu ku qorayay kitaabka quraanka ah ee carabiga habuu ku qorayay laakiin ingiriis oo luqadiisu dunida ugu xoog badantay Shakespeare wuxuu qoray in loo tarjumo modern Englishka mooyaane in yar ba akhriyi karta waa 600 sannadood ka hor 600 sannadood ka hor wixii la qoray dee ingiriisi ba 600 sannadood meelaha soo jira ee ka horeeyay Germanic languages ku ka tirsanaa yani Latin language buu ahaa waxaan uga dan leeyahay risaaladoduna waa kayd yaallo sidiisii u yaallo cid ku dhaqantoon u baahan aan marnaba taxriif gelin aan marnaba lumin ilaahayna uu quraankiisa ku sheegay inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahaafiduun ana soo dajiyay ba ilaahay ilaana ilaalinaya ilaahay wuxuu u ilaaliyay xataa afku ku qoray in rabbi dhowro culamadii muslimiinta hore buxuuftay samaysay idan luqada carbeed waa tii nabi maxamed ku hadli jiray calayhi salaatu wasalaam waa tii abu jahl ku hadli jiray iyo kuwii ka horeeyay waa tii cantara uu ku gabiyay waa tii maxay imraul qays uu gabayada ku tirinayay gabayga imraul qays baa imka inta la akhriyo caadi loo fasiraya waan ishkaal ku jirin si caadi loo garanaya wixii sababi lahaa waxay leeyihiin dadka kale markaa waxay haystaan xadaara qadiima waa mar labaad bay leeyihiin taariikh bay leeyihiin umamku taariikhda kama soo hadhaan haddaad taariikh hore leedahay waad hibanaysaa inaad soo noolayn karto haddaanad se taariikh lahayn daba go'an tahay ma jiro aabbayaal hore oo aad dib ugu noqotaa islaamku taariikh buu leeyahay tilmaamaysaa dunida tan dhowr boqol oo sannadood ama 1000 sannadood inuu keligii hogaaminayay oo dunida number 1 u ahaa hadday cilmi tahay hadday jaamacad tahay hadday dhaqaale tahay hadday everything wax kasta oo la eego iyagu ahaayeen ibn david waxaan tilmaamayay clips bay waa nin gaaleed oo qoraayahana oo taariikh cilmi ka warama wuxuu lahaa quruun alwusta 130 kii caalime dunida joogay 120 baa dunida muslimka ka yimid buu leeyahay adduunka kale oo dhamay 10 buu lahaa yurub oo dhamay 4 bay lahayd tamani waxa weeyaan waa dad taariikh iyo xadaaro la soo jireena oo sababi karta inay dib u soo nooleeyaan inta waxaan ku daraynaa hadda taariikhda daraasayso ilaahay wuxuu leeyahay wa tilka al-ayyam nudawiluha bayna an-nas wa tilka al-ayyam nudawiluha bayna an-nas bini aadamka ilaahay waa u kala badbedelayaa nolosha oo ma jirto ummad waligeed jab loo qoray ummad waligeed guul u qorantayna ma jirto laakiin aadanuhu waa qori sudhiib iyo calani sudhiibkaasoo kolba qola xoog badata bal hadda taariikhdii nabi maxamed ku noqoto calayhi salaatu wasalaam iyo islaamka marbu nabi maxamed kali aha dunidoo dhamina ka soo horjeedo qof qura qiyaas oo adduunkoo dhami ka soo horjeedo marbula cid hoysa man yu'wini wariya ay hoynaya marbula oo aan ilaahay kelmadiisa sheega oo taariikhyaanada qaarkood tilmaamaan 15 qabiil inuu isu soo bandhigo 15 kuba diideen ilaahay faraj wuxuu uga furay dhalinyaro ansaar inay aqbasho qaadato inay yimaadaan oo islaamka rumeeyaan oo bay'a al-aqaba lula ya bay'a al-aqaba thaniya la galaan oo dabeetana yidhaahdaan anaga hiliyo hooba ku siinayna noo kaalay oo carab oo dhan wuxuu ka waayay dhalinyarada yar uu ka helay uu xoogaystay oo dagaalkii koowaad ee lagu soo qaaday Badr uu guuleystay kii labaad buu haddana jabay oo laga xoog batay kii ku xigay ba Khandaq oo haddana uu guuleystay kii ku xigay buu haddana marna jabay marna Hunayn yani taariikhda bini aadamku laakiin ilaahay wuxuu leeyahay wal aaqibatu lil muttaqiin ciribta dambe waxa iska leh kuwa ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka cabsada marka waxaan leenahay kow adduunka kani ilaahay buu gacantiisa horta marka hore ku jira taa rumayso maanta dunida reer galbeed baa hogaamiya
cid dambe oo eray ka daba tidhaahdaa ma jirto laakiin hadda wax 30 sano ka hor dunida dawlado waaweyn oo kala shuuci la yiraahdo iyana qaybtooda ka taliya jiray 2 sano gudahood baa shuuciyad bal dunida la waayay 2 sano gudahood ayay may noqdeen sidii tusbax la furay daateen dawlad ka dambaysa ay dhacday reer galbeed maanta uu ogyahay inuu daalay dhalinyaradoodii baa lunsan akhlaaqiyadkii ka lumeen dadkoodii xumxumaaba kor soo maraya dhaqaalahoodii baa sii burburaya dhashoodii baa sii yaraanaysa wadannada qaarkood 1.25 bay marayaan that means boqolka qoys labada boqol qof ka kooban boqol nin iyo boqol gabdhood dadkii bedeli lahaa ma dhalaan 125 qof bay dhalaan dad ministrada waddankaas yaraanaysa Soomaaliya 30 sano ka hor intay leekay dadku denin walba awowga 30 sano ka hor awowga intuu dhalay misay maanta say misuuyi waxaad garan kartaa Soomaaliyiinta intay badatay waa inta laga yaabaa awowgay 30 sano ka hor ama 40 sano ka hor hadaan tiriyo wax gacanta lagu tiriyo inuu ahaa maantana waxa laga yaabaa inay boqolaaliin nin walba Soomaaliyeedna waa sidatan yani inta soo jeer baa laba laamay iyana waxa laga yaabaa inay tiradu intii awowgii ahay ka yaraatay 40 sano ka hor awowgii intii uu dhalay ku tirsanaysay maanta inta ku tirsatay inay ka sii yartay idan waa dad gaboobay oo tiradoodu sii yaraatay oo dhalintoodu sii baaba'ayso oo dhaqaala burburna ku socdo oo hatta unity-goodii uu hadda bilaabmay inuu dib u gelgelmo Yurub oo tan sii kala googo'aysa Ingiriis ka baxay tii kale wali waa isku oodan tahay ilaahay balaayooyin kala buu keeno corona iyo wax kala soo baxay dimuqraadiyaddii dunida loogu bushaareynayay waa taale ninna ictiraafi maayo tii Afrikaanka kale imka waa uun ka askari yar tahay sidii baa la isu hayaa waxba kama jiraan ana madaxweynaha la soo taagay yahay systemku ma aha system fudud oo horta habeen iyo maalin dumaya maaha saamaha laakiin waxaynu tilmaamaynaa نقاط الضعف جينا بلابمين موقضان ماله اللي دشدو كتشري ويصاب بيريان values كودي يقانين قيم كي هيين وصيلوا ميا حتى قيم كي دولة نماء إلى هايين يصيلوا ميا دينا يقول لمان معناه ما هنا دادو حوجي ستي هذا نكسيل لي ده تدو وصل هالكيوم عدو واج هباي adigu ma guuleysandii adoo wax noqotay guuleysanaysa hada waxa leenahay kow horta waa inaan rumaynaa ilaahay in dunidu gacantiisa ku jirto aqeedadaas waa inaanay dadka ka lumin qul illahumma malikal mulk tu'ti al mulka man tasha ilaahu dunidana adaa maamula cid kula maamusho adaa mulkiga siiya cidda doonto وتنزع الملك ممن تشاء أدا كسيبة إلهي قرآن كنت المامية تنزع أدا كسيبة بغرتو يضع عدة دونته وتعز من تشاء وتذل من تشاء أدا إلهي وعزيز كاللغون ولا يشر فعدة دونته عدة دونتنا أدا دلية بيدك الخير قعنت هذا دي وحولي بكو شيران إنك على كل شيء قدير وحول بنا أداء وده إذن بيده الأمر كله إلهي قعنتي سايا نلوشو دمي كوشرته وحين لأنه مركا لقيمين يا مستقبلك هذا التاريخ نقطة تاريخ ده كان يواليه يوهيك سده هذا النقطة واقع ما أنت يا الله وحين لأنه هو واقع شيء ومد اللي يراه oo wadankii ilaahay dunida ka doortay degan oo kanaaliskii dunida oo dhan iyaga gacantooda uu ku jiro oo dhaqaaliye wixii wadanku u baahanaa ilaahay meeshooda ku sameeyo ku abuuray oo u baahan isku habayn damba uun yani wixii umada ay kor ugu noqon lahayd oo dhamaagtooda waa taala inta waxa dheer mubashiraadka xagga rabbi ka yimi ونصوص قرآنه يحديثه وإلهي سود شيء وتلمام يين أمضة تاني دبقوا ليسن دون ينوى تعالى
إلهي بوحلي وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون إلهي وحو يبوهي كوا إيمانك لغا هلا إنغا مدكا عملك صوبنا سمية يعني طريق العزة الراعة وضد اللي يقول لي بانا ينا الراعة كما هو الرب إن إلهي ما أورنين كوا الرميس كسي حدا كربان يلي إلهي ما أورنين نوموا ولا تستيقظوا يو عراقي إنن قبيايا عراقيا وحكيا أبي مسلم ما تسيدو يهي وهوري ما سوق قبي تري ولي سحدو هتوسنا انت هردون بقولي ستبويلي يعني وحو صورها يا حال كأنه فما فاز إلا النوم أبويل ما قول يستاقوا هردان بوياني إذا نن هردان ما قول يستو نكي سحدا سعيد دي بدالي بيسو مالدو ترى هذا لكن إلهي وحلي سبحانه وتعالى كو إيمان لقاها لي عمل صالحة كو عقيده إيه إني مبادئ كل قبان الراعان لقاها له كو إلهي وحو بلن قاضي لا يستخلفنهم في الأرض لام هي نون التوكيد بإلهي كو أدكي كو إلهي سبحانه وتعالى نلك خلافة سواء ديبيا سيدي كو يغا ريبا لوغو ديبي يعني جدك نولا شهدات راعضه إلهي سبحانه وتعالى ويد النولين يبال ليه ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم إلهي سبحانه وتعالى ومكان سينيا وقعنتو قلنا يا الدين تودو رالي ونغضي ما أنت وحلقية بدوني دقيقة بدارو كم ده مسلمان هيدا تقول لك واحد شهدان ويصير أربعة لوجدي هذا أفكار كتير هذا مسلمان أربعة لوجدي هذا تيروريست نكني يوم الإسلام وشيكتي لكن إلهي وحو بلغ هذا هدي جد راعان ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم إلهي وما كان سين يديرتو دين تودو رالي ونغضي ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بقى هذا الدبداد إلهي وحو بدل يا نبت قليو دي عالم الإسلامي ما أنت سياسيين تسيا وحقرت كيسيا قويان كيسين بدن كمدي أي بقى يا رسول هذا وحاتنا هذا أرما قال دي سود وشاه أرما الله يدين قبصها أرما الله حرها أرما الله هوري ماذا ونقول لما مثل حديث كده يدي ولا دار اللي قال انتو هذا إلهي وحليه سبحانه وتعالى ربي ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا لكن وحرم حيكو حليه يعبدونني لا يشركون بي شيئا بإلهي وأين يعني يعبدان وأنا عندنا يقول شريك يلين حالة ده هدي قادان وحن واهليا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون عندي قالوا دانا فاسق بيا إلهي لي قرقار قال له لي معي